السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكسود وهذا channel كنا سيال كميديا وضبطين واوين ما انتو حاي كليهين جبوتي كينيا وكل بحدونا لولانك كرسي وقلها أمانكا دولة فدرال كومر كلا دولي تفرتانك دولماديا يصدق دح اوغان انديا تشينا او دبو بلاوتي UEFA si rasmi ah u shaacisay waqtiga uu bilaabanayo Champions League qodobada faahfaahsan ayaa goor ku maqal doontaan wararkeena magacaygu waa Muslaan Nasiif Fadlan u cusub tahay channelkan subscribe inoo saar si aad la socoto wararkeena iyo warbixinada ugu dambeysay adigoo maadsan haatan ku soo dhawaada warkii faahfaahsan dawladda Djibouti iyo Kenya ayaa u tartami doona kursiga aan joogtada ahayn golaha ammaanka qaramada midoobay iyadoo dalka ku guuleystay uu matali doono guud ahaan qaaradda Afrika labadan dal ayaa in muddo tartan adag oo diblomaasiyada ugu jiray kursigan waxaana natiijada ka soo baxday ay saameyn ku yeelan doontaa iskaashiga gobolka sanadkii tagay Kenya ayaa heshay aqlabiyadda xubnaha ka socda midowga Afrika taas oo gelisay rajo ah inay ku guuleysan karto kursiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay Djibouti ayaa sidoo kale haysata taageerada ugu badan ee dalalka Islaamka iyo jaamacadda Carabta xogyaha guud ee ururka iskaashiga Islaamka ee OIC ayaa hore ugu booriyay dhammaan dawladaha xubnaha ka ah inay u istaagaan taageerada Djibouti iyo Kenya ayaa cidii ku guuleystay kursigan waxay ku buuri doontaa wadamada Mexico, India, Canada, Ireland, Norway oo noqon doona xubnaha cusub ee UNSC. dawladda federaalka Soomaaliya ayaa mar kale si rasmi ah ugu dhawaaqday inay dib u dhigtay furitaanka duulimaadada Soomaaliya wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad oo waraysiiyay telefishinka qaranka ayaa sheegay inay dawladda go'aan ka gaartay inaan hadda la furi doonin duulimaadada gudaha iyo kuwa dibadda sababtoo ayuu wasiirku ku sheegay inay ka fogaanayaan weli halista cudurka COVID-19 oo si weyn ugu faafay Soomaaliya iyo caalamka duulimaadada gudaha Soomaaliya ayaa ku ekaa 8 bishan June dawladuna weli soo saarin amar saacsan oo lagu dheeranayay hase yeeshee duulimaadada ayaa weli hakad ku jira duulimaadada ayaa waxaa la sheegay in dib loo furi doono 7 bishan June xiisad aad u kacsan ayaa ka jirta xadka u dhaxeeya dalalka China iyo India kadib markii ciidamada ilaalada xadka labada dhinac uu dagaal culus dhex maray India waxay sheegtay in dagaalkaasi ay ugu dhinteen ugu yaraan 20 askari halka dawladda China aan weli la xaqiijin wax khasaare ah oo soo gaaray ciidamadaasi India iyo China ayaa toddobaadii tagay waxay ku lug lahaayeen ismarwaaga ka taagan dooxada Galwan ee gobolka Himalayas ayadoo midba midka kale uu ku eedeynayay inuu dhulkiisa ku soo xadgudbay India iyo China ayaa si kooban xuduud ugu dagaalamay 1962 mana awoodin wixii markaas ka dambeeyay inay xaliyaan murunkooda inkastoo ay wada hadal u socon 10 sano والله داود waxaan ka codsanaynaa hadii aad tahay marka kugu horeysay inaad channelkeena subscribe inoo saartid magaalada Lisbon ayaa martigeli doonta inta ka dhiman UEFA Champions League xilli ciyaareedkan laga bilaabo kulamada siddeedamaadka finalkana waxaa la ciyaari doonaa 23 bishan Agoosto inta ka dhiman tartanka UEFA Europa League ayaa lagu qaban doonaa dalka Jarmalka kulamada aan la ciyaarin ee wareegga 16 Champions League ayaa waxaas arki doona kooxaha Manchester City, Real Madrid, Barcelona iyo Napoli, Bayern Munich iyo Chelsea. Juventus Lyon ayaa lagu ciyaari doona sidii caadiga ahayd si kastaba ha ahaatee waxay ka bilaabanayaan wareegga siddeedamaadka tartankan ayaa noqon doona min hal kulan UEFA Europa League kulamada wareegga 16aad ee Roma, Sevilla, Inter iyo Gaddafi ayaa loo baahan yahay in lagu ciyaaro min laba lugood iyadoo kulamada halayna la ciyaari doono sidii caadiga ahayd gudahantiisa ku soo gabagabeynaa wararkeena iyo barnaamijkeena ciyaaraha intaan warcinkaan oo kale aan kulmi doono waxaan kaga tagaa sidaas iyo amaan Allah.